gaar ahaan isbedelka Ethiopia ismaamul deegaanka Soomaalida madaxweynihii uu wareejiyay xilkii madaxweyne kale lagu wareejiyay isbedelkaasi saameyn intee leeg Soomaaliland ku yeelan karaa bismillaahir rahmaanir rahiim walhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuulillah waxaynu inoo qadaynaa Soomaaliland aan xirla leenahay saddex wadanka Soomaaliya wadanka Ethiopia wadanka Djibouti xadka ugu dheer waxaan la leenahay Ethiopia marka Ethiopia waa wadan siyaabo badan isugu xiranahay dad baa inaga dhaxeeya xiriir ganacsi ayaa inaga dhaxeeya nabadeena isku xiran siyaasadeena isku xiran marka wax kasta oo ka dhaca saameyn bay nagu leeyahay dhinac walba inagu isbedelka imka ka socda wadankaas oo runtii ku saldhigiisu yahay nabad ku wada noolaasho iyo iskaashi dhaqaale wuu soo dhaweynaa iyo furfuraansho mataqaana dimuqraadiyadda maxaa la xoojiyo la dhowro xuquuqda insaanka waa waxyaabo ku salaysan constitution-keena iyo mabaadi'deena waynu soo dhaweynayna dabcan wixii dhibaato ka dhacana isbedel walba wuxuu la yimaadaa xanuunkiisu leeyahay isbedelan xanuun lahayn ma jiro marka wixii xanuunka ka dhashay dhibaatooyada laftigeedu wayna saameynaysaa deesaa wala socotaan baydinkuba maalin walba la soo report gareeyo shaqaaqada ka dhacay maalmo dhaweyto deegaamada qaar kamida gobolka shanaad ama kililka shanaad ee Soomaaliya ay ku nooshahay marka ugu horeysa waynu ka tacsiyadeynaa eheladii iyo qaraabadii dadkii dhibaatada ay ka soo gaadhay shaqaaqada halka ka dhacay waa ka tacsiyadeynaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala intii baxdayna waxaan rajeenaa inuu waxaan ka baryaynaa inuu dambi dhaafo wixii kale mataqaanaa inaga beegan wadan jaare inaga beegan amba baahiday timaadana kaalinteena ka qaadanayna iskaashiga dhaqaale ee Ethiopia aad soo qaaday wasiir waxa kamid ahaa Somaliland in ay maalgashiga share ku leedahay dekada Berbera Ethiopia 9% dekada kale ay maalgashato far badan oo gobolka Geeska Afrika ku yaala jira waxa ka dambeeyay heshiiska Eritrea iyo Ethiopia oo bilaabmay nabadeed oo ganacsiga ku jiro haddii intaas oo dekada ay maalgashatay Ethiopia maxay kaga duwanaan kartaa Somaliland markii hore waxay targetkeedu ahaa suuqa ugu weyn ee dad weyn isticmaalaysa inay noqoto Ethiopia saameyn intee leeg taas yeelan kartaa dhinaca ganacsiga Ethiopia Somaliland Ethiopia wasiirada Ethiopia waa wadan weyn oo population fara badan leh dad fara badan leh 100 iyo dheeraad milyan wadan ay ku nool yihiin dhaqaalihiisuna aad iyo aad u koraayo baahi badan u qaba dekada badan baahidiisa ma kafeen karto dekadiya 2 iyo 3 ma kafeen karaan sida awadeed markii uu mataqaana prime minister ku soo maray ra'iisul wasaare uu soo maray wadanka Suudaan heshiisyo la soo galay Kenya markuu soo maray heshiisyo la soo galay ku saabsan dekadaha Soomaaliya markuu soo maray heshiisyo la galay ku saabsan dekadaha Eritrea laftiisa ku nimka heshiiyay labada dekadood ee Casab iyo Musawac labaduba sidii berigi hore u isticmaali jireen kulli dad loo bilaabay inay isticmaalaan Djibouti aad u isticmaalaan iminka Berbera wana heshiiska la galay anu waxaan qabaa intaasoo dekadoodba baahi buuxisay way taalaa meesha dabcan markuu dhaqaaluhu koraba iyo dadku ay korama baahidoodu way sii badanaysaa heshiisyadaasuna wax maaha maalin kaliya ku dhamaanaya amba dekadahan ballaarinta loo baahan la ballaariyo wax maalin ku dhamaanaya ma wax iyo laftigoodu waqti qaadan ka runtan iyo warwariguma hayso iminka inaka wax badan inagama maraan oo Ethiopia ku socda dekadeen waa ugu badan raashinkan WFP ayaa ugu badan inta kale runtii way iska yartahay meel hoose inuu ka bilaabeena marka inaka waxay noo ziyaado inoo kore mooyaan waliba dekadeen markaan u dhisano dekadeen way yartaa ma baqaadi karto yani culays kale ma baqaadi karto laakiin marka la ballaariyo waxaan qabaa inay mataqaana ay jiri doonaan badaacad fara badan oo ay soo mari doonto saacad wasiir sidoo kale waxa jirta saacad ugu dambeeyay warbaahinta hormada waxay qoraysay in Somaliland lagu dhibaateeyay dad oramaha oo Somaliland ku nool bal maxaad kala socotaan wax abashada dawladda Ethiopia ma soo gudbisay oo muwaadiniinteeda ku aadan waxa la arrintan ka warhayo xaalada dambeeyay runtii shirban ka galay waana kala war qaadanay ciidamada amniga cid allaali cid loo geystay dhibaato oo oramiya wadankeena ma jiraan runtii waxaan soo saaray go'aan oranaya in la ilaaliyo maxay yiraahdeen nabadda dadka iyo dunyadooda in la ilaaliyo dadka inoo martida halka nala jooga oo soo dhaqan kooranaya diinteenu ay oranayso
marka taa may dhicin waanan ka soo horjeednaa inay dhacdo waxaan fariin halkan uga farayaa insha Allah bidnaa ka dadka reer Somaliland inay dhowraan dadkii nala joogay noo martida oo ay dhowraan maxay naftooda cirdigooda dhowraan maalkoodana dhowraan waa maxay mowqifka dawladda Somaliland wasiir su'aasheeda ugu dambaysa waxa weeye waa maxay mowqifka dawladda Somaliland arrinta heshiiska Eritrea iyo Ethiopia dawladda Djibouti iyo Soomaaliya taageerada Soomaaliya Eritrea way isku dhaceen bal Somaliland mowqifkeedu waa maxay horta mowqifkeena ku saabsan isbedelka soo warkii madaxweynuhu cadeeyay u bayaamiyay kaas weeye mowqifka rasmiga laakiin inagu cid kasta oo gobolka oo heshiis gaadha ama wax ku heshiisa ama nabad maxay samaysa oo soo dhaweynayna cid kasta oo iskaashi samaysa oo soo dhaweynayna wax kasta oo wanaagsan oo gobolka laga qabto ama jaarkeen uu qabtay oo soo dhaweynayna taa madiidin مدودي الشركة اللي بيجوا الأيرو والاهتمام تكتب البرنامج السنة اللي بعد قياسته هي كسولتي وحنا شيء قطبة بدنا تهشيس كمالجين هاي سمعنا سيء فلساء إلا إما كنا عشور بدنا كي يرد على بدنا كه شوي تكتب معمول سايم بين أغنية ماله وحق قبتين ممكن عطينا قطع مدار كي عم تكتب وسبيل بسي لقد سي ما عمي كلام مالجينها إلا إما كان بشدة حسويتين ساي سبب تيجوا فلن قطبتي وقت يجي لو تلاقي على رأيه أي نوع من هاي إن استعمال كده كده قاعد كويس ما بكره على بدنا الكيسو كحكومة الحين أريك حسب ما لو نكرين ود سمعنا وقف فشلتي شيء كاس إن شيء كده سيسي وفلسو سؤال شلون بدنا في دينا واحد هاي أنا أنتي حكومة الرسمية مدحبين موسى بيحي وطلع قبصي واحد شيء بالله بدنا قصب حياة سياسة ما تبدو عود اللي هي أنا قارس يو ظروف هذا كان يسوى شيء وصادق سد مدرسة حسنا كل وقت شوفته وحدنا حكومة الفراي كسر وحين وكان استيدا بلاد وجودن بسياسة ما تبدي أنا والله قد يرنا يعني سلواتها بسم الله الرحمن الرحيم مثلا أرنك دكده هشيس بينه قال لي إنك يا دي بي ويل هشيس كسوح الشيء إن دكده قبل اسمه لو سميه يلا أنا بلاريو إذا الراعي فيس وجه هو روحها إن مامورك على حاجاتيو إن قلب لو كانوا وجه قلبنا وحها إن 4 كيلومتر لو قدروا وجه سدحان وحنا 4 كيلومتر كلا لو قدروا إن وحنا كشري وجه هوري قلبنا والله كاني نظام بدنا ولوسي ما تقدر بريها تكتي كل دي وحنا فلين تكوارتي سبدل فربنا تكوارتين حب مامورك نظامك متقنا كسعودي كده فيس كلا بعض بلارين تدكده دراسة دي بايم كلا دمايستري ترتم باشر كده اللي جريء هذا ميت بيكون جولي استبال هيري تبنى وحي بلابين وان هذا إن هاوش بلابين سيدو صور رسن لعين دت كودي قلب كودي تبنى بيش أكتوبر أيام كقشوية هاي إن لبلابور اسمه وتكاس وكاس إن كي كله فري زون كله فتيجي للسعودي إن وحلا وضعهم كشرعيات دي بالوضع إن سيدي كريشيس كودا ماضي ونشرعيات وايد ماتو تبعنا بالذكريات الله صوص هارم برنامج اللي جايو نسنا والله بلابية مركز نالكاسو إنه مري مير في عم بينه مري. ويصير هذا سؤال لا تنكشف عن بتشوفي قلت أنا واحد شوقي مكوالله بس النوادي دهرات بنشوقه مدة نشوقي رجع يجورين رنتي دال فرق بدن أي سمين وحنا نسمين دال آدي هذا فرق بدن قلت أرنك يعني قلت مكوحليه هي الدليليو وحاسم بوي جابي أنا بوي ديري أنت وحبال لو قياسه قياس هالبيك بدي تشري موت لو بيقدر أرنك اعترافك وعرب كأنك مشرو وده عد كلمة السويين أنا كله واخذه إنك وحلا نقرب ددال رنتي لو ما يريسن لو ما يريستو هديت سوق هذا مثلا أنت وكيلين ولا أنا هاي يمكن سجاير لاتم وكيل بين ولا أنا هاي حفيزين أنت كبدن بين ولا أنا هاي وكواوين محل هذا كم مهم سن حق ورجلنتي صحافتي والباهنتي سلام تغلي نوم قلاد ذاكتو وحبضن بينو قال صحافة يمكن سنة كانوا كلية أنت إنه كشري صدق بقولات شارين كبضن باسومال لا وصو هذا القاضي صحافة عالمك ويعني ما يمادهم إن أنا تقو يدن سومال لا وصو هذا القاضي ده بس كاسكيم ده كم يمنن يا هذا النقطة حق جدت كان زيارة ده مالهم تيجي إنه ويدي نجارسين أم بدت كانوا لكل ما إنه runtii waxaan la kulnay dad aad iyo aad u fara badan
amba dowladda leh amba safaarada leh amba mataqaanaa siyaasiyiin leh akaademiya leh ganacsata leh oo maalin walba u joogtaan markaan waxaan qabaa magaceenu maanta halkuu joogo wuxuu joogaa yani runtii meel aan marnaba aanu gaadhno meel sare buu joogaa waxaan kula aad aan ugu dadaalay sidaan u diyaarsan lahayn kayskeena qadiyadeena ilaa dhowr iyo 10 qoraal ayaanu sameynay naga soo baxay kuwa ku saabsan xagga xuquuqul insaanka taariikhdeena sharciyadeena waxa soo dhan runtii waan wada diyaarinay waan wada qornay inta xigsan la kulano afoo kaliya lama tagno waxaan la tagnaa anagoo sidna dhowr iyo 10 document waan hor dhigno wasiir su'aal baan ugu dambeyn ku weydiinayaa inaan ka mas'uul dhinaca ka weydiiyay hadalka Djibouti ay ka carootay Eritrea oo madaxweynaha Soomaaliya ka jeeday wuxuu ahaa in cunaqabateynta laga qaado Eritrea idinku taas aad aragtaan cunaqabateyntii hubka in laga qaado Eritrea xilligan oo arintii xuduudka aan ku heshiinin oo dagaalkii Djibouti iyo Eritrea wali u taagayaan laga heshiinin arrinka cunaqabateyntu runtii de waa arrin ka dhaxeeya jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa iyo Eritrea kulli de shuruudaha lagu xiray haddii de shuruudaha buuxsamaan de waa laga qaaday haddii shuruudaha buuxsamaan de laga qaaday arrin inaga inoo yaala ma laakiin cilaaqaadka ka dhaxeeya Eritrea iyo Djibouti inaku waxaynu de ku talinaynaa rajaynaynaa in wixii khilaafaad ka dhaxeeya ku dhameeyaan wada hadal iyo wanaag hadalka Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya soo dartaan ee uu codsiga jeediyay isagu arrinka hadii isaga u gaartay laakiin saan sheegay de isagu cunaqabateynta soo rogini cunaqabateynta jimciyadda qurumaha ku dhaxaysa ku soo rogtay iyadaana de ka qaadi karta shuruudaha ku xidhan shuruudaha buuxsamaan de waa laga qaadaya wasiir maadaama imika jaaniska nolol kale meesha u yaala ay tahay xiriirkii Djibouti iyo Soomaaliya uu hoos dhacay ama xumaaday maxaa jaanis ugu jiraan jamhuuriyadda Soomaaliland horta inagu doonayno xumaan jaararkeena ka dhaxaysa inuu ka faa'iideysano waxaan doonaynaa ka mid noqono bah wadamo xor ah oo geeskan Afrika ma taqaanaa jooga oo cilaaqaad wanaagsan leh oo wada iskaashi wanaagsan leh oo ka dhaxeeyo marka inagu waxaan ku dadaalnaa si cilaaqaad wanaagsan la yeelano cid walbaba laakiin ujeedadeenu ma aha si inuu ka faa'iideysan lahayn maxaa khilaaf cid ka dhaxeeya gobolka wasiir magacaygu waa Khalid Fodadi waxaan ka socdaa telefishinka Goobjoog waxaan ku weydiinayaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi waxa uu sheegay in uu taageersan yahay isbedelada uu wado Abiy Ahmed ra'iisul wasaaraha Itoobiya waxa ka mid noqday isbedeladaasi in Cabdi Maxamed Cumar oo ah madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya xilkii uu ka tooray isagoo cadaadis saaray waliba sida aan ognahay idinku ma taageersantihiin in Cabdi Ilay laga qaado xilkii inta isbedelku ka hadlay madaxweynuhu waa mid siyaasadeed mid maamul ma يا مدحوينا نقونا يا برسام نقونا يا قدوميا وارن معمول لكن أرنك السياسة تاجر يا وحوي إن نبض قوض النولادو محل ذا جيسك إن متقنا جنعسي الله وضيعشوا إن محل الله قوض الشقية سديدت كنا نوع ساري لهين محل ذا صبول نمضى وإن هرمرين وجالسين وتاويتو تاجر وين تاجر سنة دتا عبد محمد عمر إن حلكي لقط فوري صدر أرنك هذا أرنك إيه لما أرنك سوارن جده وارن داخلي ويا للدولة محل هذا يعني إثيوبيا ده حلو لبنانيسو إنك عارين خصية ما وارن يخصية ويا. الفنان عصوب الوضع في الدولة دي كان محد كرت شنيسة. نقوم مدحوينا كستبع نوقف معها واحد من حسين يا مجمع معها عد كستوتي ما دي وإحنا كرتين شاروناك يوضع الشقين بينو كرتين. dad ba hadal haya madaxweynaha Soomaaliland in Djibouti uu tagayo oo madaxweynaha Djibouti iyo Soomaaliland kulmayaan wararka ma jiro wasiir runtii wax mudaysan aan hadda ma ogi laakiin de waan tagi karana haruna wuu tagay madaxweynuhu waxa safarkii ugu horeeyay sameeyay Djibouti buu ku tagay mid kalena ku tagi karaa gabagabadii wasiir haddii aan hawlaha wasaaradda ka baxo oo hawl gaar ah ku weydiiyo waxa jirtay dhawaan Dr. Naasir Cali Shire warbixin horgeeyay golaha wakiilada rag badan oo isku golaha wasiirada ahayd waxay yiraahdeen Saacid Cali Shire oo laftigiisu musuqmaasuq sameeyay hadday noqoto safaaradihii dibadda lacagta loogu talagalay aqoonsiga lacagta loogu talagalay walaalkii kuma soo diray warbixinta balse aad aragtay wasiirada horta waxaan kan ka cadeynaya wax musuqmaasuq wasaaraddan ka socda ambaan aan sameeyay bacad kala sameeyay inaanay jirin qofkayna uu iska hadlay runtii dawladda waxa leedahay auditor bay leedahay auditorku nagu soo saaray waa la arki doonaa laakiin wuxuu soo saarayaa ma jirto waayo aniga layguma yaqaano
mana samaynin cid wasaaradda ka shaqaysaana maanay samaynin wax musuqmaasuqa haba yaraatee cadayso bal weydiinay soo caddeyn ciddiisaa tiri laakiin waxaa adeegsanaya lacagta safaaradaha dibadda oo waxay leeyihin safaaradaha dibadda shaqeeya way yaryihiin sidoo kale lacagtii aqoonsi raadiska ma jirto ilaa hadda cid ku shaqaysa inta loogiya waa lagu shaqeeyaa aqoonsi raadiska waynu adeegsanaa safaraa loogu baxaa cid baynu adeegsanaa public relations lobbyist firms waxaasoo dhan baynu adeegsanaa waa lagu shaqeeyaa si habka loogu shaqeeya habkay u baxdana waa habka u dejisan qarankeena waa sifo sharciya bay ku baxdaa